السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن دمان أصحابتنا وحيران سنديه قدام بيي waxaa si istabajooga ah u soo kordhayay tirada dadka Soomaaliyeed ee u haajiraya dalka Canada iyagoo raadinaya nolol wanaagsan nabad fursado dhaqaale iyo waxbarasho in badan oo kamid ah waxay ku yimaadaan barnaamijyada qaxootiga in badan oo kalena waxay ku yimaadaan barnaamijyada socdaalka sida dib u midaynta qoysaska ama family reunification waxa loo yaqaan barnaamijyada waxbarashada iyo kuwa shaqooyinka la xiriira si kastaba ha ahaatee Soomaalida ku cusub dalkan Canada waxay la kulmaan caqabado badan maadaama qaab nololeedka deegaanku uu yahay mid ku cusub warbixintan waxay ku iftiiminaysaa caqabadaha ugu waaweyn ee ay la kulmaan Soomaalidu waa Saacid Xaaji Aadan soo dhawaada mar kale luqaddu waa mid kamid ah caqabadaha ugu horeeya ee ay la kulmaan Soomaalida cusub dad badan oo Soomaaliyeed uma suurtagelin in ay bartaan luqadda Ingiriiska ama Faransiiska taasoo adkeysay helitaankooda dhanka shaqada fahamka nidaamyada dawladda adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo guud ahaan dhexgalka bulshada ay u yimaadeen luqaddu waa tiirka ugu muhiimsan ee isdhexgalka bulshada iyo horumarinta noloshaada shakhsi ahaaneed marka uu qofku fahmi waayo luqadda rasmiga ah ee wadanka uu ku nool yahay waxa uu wajahaa caqabado baaxad leh oo saamaysa fursadihiisii nololeed adeegyada bulshada iyo xiriirka uu la leeyahay dadka deegaanka tusaale luqaddu waa sida furaha albaabka aad u isticmaasho haddii aadan haysan waa kugu adkaanaysa inaad gasho Soomaalida cusub ee aan fahmin luqadda deegaanka waxay dareemaan go'doon wana sababta ay muhiim u tahay inaad dadaal dheeraad la imaato oo dhanka luqadda ah dhanka kale jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Canada waxay kamid yihiin bulshooyinka muhaajiriinta ah ee door muhiim ah ku leh horumarka dhaqaalaha iyo kala duwanaanta dhaqan ee wadanka in badan oo kamid ah Soomaalida Canada ku sugan waxay haystaan aqoon sare xirfado kala duwan iyo rabitaan ay kaga qayb qaataan horumarka guud ee bulshada laakiin taa beddelkeeda waxaa jira dad badan oo shaqo la'aantu saameyn ku yeelatay taasoo noqotay caqabad weyn oo hor istaagta korriimada dhaqaale isdhexgalka bulsho iyo guud ahaan horumarinta noloshooda wargelin muhiim ah xarunta Saacid Agency waxay ka caawinaysaa guud ahaan adeegyada kala ah diyaarinta kaysaska sixidda kaysaska khaldamay turjumidda kaysaska qabashada ballanta faraha ka jawaabidda interviewga iyo tala bixinta dhammaan wixii interviewga la xiriira xaruntu waxay ku taalaa Kisenyi gaar ahaan agagaarka Masjidu Dacwa suuqa dhanka midig ka xiga ee Jubilee Complex wixii faahfaahin ah fadlan kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda haddaba maxaa keenay shaqo la'aantan baahsan ee dadku ka cabanayaan qaar badan oo kamid ah Soomaalidu waxay haystaan shahaadooyin sare iyo xirfado laakiin waxaa dhacda in mararka qaar aan si buuxda looga aqbalin gudaha Canada tani waxay keenaysaa in qofku ku qasbanaado helidda xirfado cusub si uu u helo shaqo caqabada labaad ayaa ah luqadda Ingiriiska iyo Faransiiska oo aan kaga soo hadalnay bilowgii muuqaalkeena inkastoo oo ay jiraan Soomaali badan oo ku howlan barashada afafka rasmiga ah ee Canada haddana dadka cusub ee soo galaya ayaa caqabadani saameyn gaar ah ku yeelatay taasoo keentay in fursadahooda shaqo ay yaraadaan caqabada saddexaad waa khibradda ama waayo aragnimada uu qofku kala yimid dalkiisii hooyo waxaana marmarka qaar dhacda in uu tixgelin buuxda waayo sababtuna waa nidaamyada shaqo iyo waxbarasho ee dalalka oo ah kuwa kala duwan taasoo keenta in uu qofku shaqada ka bilaabo meel hoose waxa kale oo meesha ka maqnay waxa loo yaqaan cunsuriyadda ama discriminationka waxa loo yaqaan qaar kamid ah Soomaalidu waxay dareemaan jiritaanka caqabado dhanka cunsuriyadda ah taasoo saameyn ku yeelata helitaanka dhanka shaqada gaar ahaan marka ay timaado magacyada asal ahaan qofku halka uu ka soo jeedo ama diin ahaan in loo bartilmaameedsado inkastoo ay jiraan caqabado badan haddana Soomaalida ku nool Canada waxay muujiyaan adkaysi karti iyo horumar la taaban karo qaar badan waxay goor sii horeysayba bilaabeen ganacsiyo waxaana muhiim ah in la taageero dadka cusub si ay si buuxda uga faa'iideystaan fursadaha dalka ka jira isla markaana wax ula qaybsadaan jaaliyadaha kale ee dalka ku sugan ugu dambeyn haddii aad ka heshay muuqaalkan waxa naga xasuusin ah inaad muuqaalka like garayso saaxiibadaada la wadaagto si uu meelo fog u gaaro dadkuna uga faa'iideystaan wixii talo ama tusaale ah waxaad noogu reebi kartaa qaybta commentiska hana hilmaamin inaad subscribe tiraahdo si xogaha aan channelkan ku soo gudbino aysan marna kugu dhaafin intaan warbixintan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo